magaalada Jigjiga waxaa isugu yimid isimada culimada qurba joogta dhulbahante waxayna daarrayd isu imaatinkoodu isbedeladan geeska Afrika ka socda sidii ay ula jaan qaadi lahaayeen xag nabadgelyo xag horumar xag dhaqaale xag wax qaybsigii dawlad deegaameedka Soomaalida waxgaradka halkan isugu yimid waxay awoodda saareen sidii loo adkeyn lahaa amniga deegaamada dhulbahante uu ka dego dawlad deegaameedka maadaama uu degan yahay xad ku dheereeran dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya iyo dawladda Itoobiya oo ilaa 700 kilomitir gaaraya xaaladaha deegaamada ka jirana waynu ka warqabnaa sida ay isaga kaashan lahaayeen amniga loo sugi lahaa dhinacan Itoobiya iyo dhinaca kaleba waxa laga wada hadlayay amni ma jiri karo haddii aan bulshadu ayan haysan horumar iyo koboc dhaqaale iyo ilaahay hadduu ku roon yahay kaabayaasha nolosha sidii taa iyana loo xoojin lahaa tolweynaha dhulbahante wuxuu dhul ballaaran ka degaa gobolka Doolo wuxuuna tirsanayaa xaquuqo badan inay dawlad deegaameedka kaga maqan yihiin arintaas sidii dawladda Soomaalida loogala hadli lahaa sidii maanta magaalada Jigjiga ee xarunta dawladda Soomaalida waxa ka socda horumar ballaaran waana magaalo dadka u dhaxa sidii aan ugu yeeri lahayn qurba joogta dhulbahante in ay u maalgashtaan gobolka ay degan yihiin Doolo iyo caasimadda Jigjigaba waxaanu hambalyeeynaa oo ilaahay hadduu ku roon yahay bakasokow aanu horumarkan ka socda dawladda celinaynaa xukuumadda Mustafa Maxamed Cumar oo soo dhaweysay dadku waxay u baahan yihiin amni iyo ilaahay hadduu ku roon yahay cadaalad labada hadday helaan horumarku bulshadu ka yimaada sugidda ay labada sugeen sahashay in dadku ay horumaraan maanta Jigjiga ay sidan xawliga ah horumarkeeda iyo kobaceeda iyo kororkeedu ku socdo waa soo dhaweynaynaa waana ku mahadinaynaa ilaahayna ha ku sii dhowraanu leenahay arrimahaas oo daaraa wali wax baaqo ka soo baxay shirkan ma uu jiro maadaama cidii aanu kala hadli lahayn aanan wali arag xisbigu uu ku maqnaa shir hadeer uun xukuumaddu ay ku soo noqotay Jigjiga ilaahay hadduu ku roon yahay kulanna waanu ka filaynaa madaxweynaha kulankaas madaxweynaha iyo xukuumaddiisa yaanu ugu gudbin doonaa go'aamadii ka soo baxay shirkan yaanu ugu gudbin doonaa haddii eebayno waxaa jira bini aadamku cid walbaaba cid ay ama resource-ka ama cadaalad darro keentay cid xilif ay ka dhaxayso dad xinka iyaga iyo xasaradda iyada jecel baa jira oo ilaahay hadduu ku roon yahay la arkay in ay waxyaabo iska kaayo hor keenaya annaga iyo dawlad deegaameedka inay meelaha ku baahbaahiyeen waxaanu cadaynaynaa ilaahay hadda go'aamada shirki ka soo baxay jeebkay noogu jiraan dawladdaanu la wadaagi doonaa dawladda markay nooga soo dhammaato yaanu shacabka iyaga maxaa ka qabsoomay maxaan ka qabsoomin wixii ay noo dhiibteen iyo waxay ka filayeen hadday tahay amni hadday tahay cadaaladda ay dhimaan garaynayaan leeyihiin qaybtayadii gobolka Doolo waa inaan ka helaa hadday tahay horumarka hadday tahay ilaahay hadduu ku roon yahay dhinac walba qaybtii dawladda looga fadhiyay waxay ka qabatay iyo waxayan ka qaban dadka iyaga waanu la wadaagi doonaa markaanu xukuumadda aanu kulanno
waxa intaa ka horeyso naga soo baxay ma ay jirto in sha Allah ta'ala sidaas aanu Soomaali iyo dadka yaga iyo dawladda Soomaalida iyo dawladda federaalka Itoobiya aanu ku wargalineynaa wabillahi tawfiiq